waxaa arrimo jacayl dartooda la sheegay nafteeda in ay ku weyday Raxmo Cali Ciise oo ahayd 24 sano jir ku nooleed xeryaha qaxootiga ee Xagardheera dhawaan waana fal ay si weyn uga naxeen bulshada Soomaaliyeed falkan ayaa waxaa noo cadeeyay waalidka Raxmo iyo dariskii la deganaa xaafadda ay kaga nooleed xeryaha Xagardheera inkastoo sababta geerida Raxmo ay hadallo kala duwan ka soo baxayaan haddana waalidkeeda ayaa qabo in wiil ay isjeclaayeen uu biyo sun ugu daray kadib markii uu ka dalbaday in uu la rooro ama la baxsado balse ay ka biyo diiday oo ay ka codsatay taasi bedelkeeda in uu reerkooda ka soo doonto marka gabadheygana Raxmo Cali Ciise la dhahay jiray ilaaha u naxariisto وآد وحن عن ولا عن يعني قلبي آد أي أقصى وحسمن واحد قبل ديجو ساعة وحن فيلين إنه يحكوا دعان نن عن هذا عن وحن ديدين أي برنامج كان يكون عاطي خوف هذا واحد ديد وباب كذا إلا ده لكن نن عن وحن ديدين عن أضيال إياه محمد عامس markana maana waxaan u diiday aan odayaal aan ka sugay oo ila soo xiriir aan iri hadana anas gabadheygii as qaab oo islaamnimada ka baxsan anas ila dhaqmo waa waxaan aad calooshayga xataa ay uga soo xismilaahday waa ay aad uga xumaad oo hadana leegili hadana gabadha hadana sonay bacabta alleeyra waxaan aad calooshayga ay uga xismilaahday waa daqiiqado kadib markii ay Raxmo sumowday oo ay geeriyootay laba la dhalatay ayaa waxay tooriyeen Cabdikaafi Cabdiqaadir oo ahaa wiilkii ay iscaashaqeen Raxmo dhaawac culus oo soo gaarayna haatan lagu dabiibayo isbitaalka weyn ee Garissa General Hospital waalidka Raxmo ayaa ku doodaya in gabadhooda inta aysan geeriyoonin daqiiqado ka hor ay u sheegtay in ay nafta u weyday Cabdikaafi dartiisa balse ma jirin cid ku gelisay laamaha ammaanka mana cadda sababta ay Raxmo reerkeeda u aamuseen gabadheygii markay xanuunkii qabtay sakaraadka marays ay tiri aabo ma iga ballan qaaday waxaan ku sheegay ana ii fulinayso waaya waan ka ballan qaadan ku yiri gabadheygii labada gacanyooda ana gacantayga saan u qabatay ayay waxa igu tiri aabo aniga waan dhimanay falana nikaasa igu leh waagi oo maalin afaraad oo xagga ka soo wareegtay wasbiyaha qaboojiyaha ka cabay qaboojiyaha iska cabay oo furka saaray oo anigana uga dambeeyo biyi ka cabay laga ma dambeeyno baarkaas laga dhigay qaboojiyihiina waxaan ku shubay fiyoori isla markii uu isbedelay fiyooraha jaran oo arki doontiin oo meesha boodka saaran fiiriya kaas ana jaray biyaha saanu ku shubay qaboojiyeena waarna dhaqsidii gadaasha ilma ay wax ku noqon anigana aabo iyo cafiyo aniga qari Cabdikaafi iyo waliba ehelkiisa ayaa iska fogeeyay dilka lagu eedeeyay taasi bedelkeedana waxay sheegeen in la dulmay falkan ayaa bulshada aad uga hadalhayaan xeryaha qaxootiga ee Xagardheera waxa uu cabsi badan ku beeray bulshada qaasatan waalidiinta ku dhaqan xeryaha qaxootiga Abdasiis Siyaad warbaahinta kulmiye